السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أمد الصوماليات ملك الصد عالم كجوجتاني حلي كستا يديد هاي ودائما حلنا مركله برشا وناكسنا دادي أقولين بعيد ودائما حلنا سودو gacmo furan qalbi saafiye walaaltinimo ee kalgacayl walaalaha qurquruxda badan aad u mahadsantiin dhamaantiin hadda koobaad waxaan celinayna Allah subhanahu wa ta'ala meesha waxaan rabaa hal qodob inaan uga hadlo halkaas qodob waxaa waaye dadka qurbaha joogo ee jecel dadka qurbaha joogo oo wadankii amba Afrikada kale qof xiriir la leh amba isjecel yihiin jaceylkiisa oo halkaas jiro ku hami weyn inuu soo dhoofiyo walaalay amba walaalo waa laba shay horta inaad meel dhigtid qoftan waa isfahmi kartiin waa ina isfahantiin oo saa rabteen nolosha ay noqotana waa dhici kartaa midda kale ugu daran maxay tahay marka mid waa midaas ina hadaa isfahanteen waxa waaye walillahi alhamdu waa sidii la rabay oo Yurub keenta amba America ageysi laakiin hadaa isfahmi weysid waa inaad ka fikirtid Soomaalidu waxay dhahaan shar u toog hay qeyrka xabka ama dhibaa intaad qeyrka sidii la rabay waa number 2 waa ku baxnaa number 2 waxa laga rabaa qoftaas waa kaati qurba keenta qoftii shalay u macaan badnayd ee u fiicnayd ee waxaan ku iri high class ku ahayd ee adiga واو أتري وحتى الله يا بدض بدن إني يكون هي قفتان قف وعالم وأم قفتان قف خفيف وقفطة وأم قفتان قف لسه الله يكرم معنا ميلها يسوقين نطلعوا لها هذا كنا عيقنا الجريز وحالا ربع مرك حدي قفت كاتكت وابس فهمي كرويسين وابس فهمي كرويسين صومال الله وابس فهمي ويسين بكاب السوقات أديو شخصيا قف أهانت هذا ما مسكون حياة مase waxa leedahay waa dhacdaa caadi waa keenay waa isfahmi weyne doorka Ilaahay aan kala marno go'aankaas ma soo istaagay mase biyo meel lagu daadsha isku dhaxyaacay labadaas shay ayadoo ku kala cadeyn waliga ee Allah qof soo dhoofin aan intaas ku dhihi lahaa qofta la soo dhoofinayay adigana wax kasto aad diyaar u noqonay umeysi bahdilaad qof xun inay kugu noqotaa laga yaabo qofta la soo dhoofinayay amba qofta rabtay inay ku noqoto oo jaceylka adduunka inay ku noqotana waa laga yaabaa marka waxa ku dhihi lahaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed labadaas shay ka fikira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.